meesha waxaan kaga soo gudbinayaa wararka asaga ee bulshooy idinka idin sheegaya marka haa maya labadaba idinka idinka raba saanayno waramaysa abeesan kurinaya agtaydan dhiganaya amaan baan ka helayaa waxa ebadaanan maqal olol baan shidinaya agtiisan fariisano oon kulul ima taabanayo waa waxa ebadaanan maqal abrisan aqalka geysan ilmaha ii dhex joogo ilaaliyaha ahaado waliba ha intifaacsadaan waa waxa ebadaanan maqal in ruux laga abuuro afada aroos u tahay interest meel uu ka arag arxan ebadaan u falin udgoonni ubax mareeba allow naga qabo uhdiis markuu alla soo idmoos ka soo baxay uurka hooy anfici ugu horeeyay aan qiris looga dhigay afkiisa waa wax dad laga ilduufiyo oo li amar loogu qaado ma ahayn arsaaq wanaagsan ishaaro waxa noogu filan intaan ka aragnay ogaada ereygu afka ka dhihi uurkiisa isma aaminaan ninkii laga helay intaasna ibliis ehelkiisa waay intaad joogtaa agtiisa asluubtii hadal ekeynta waxaad moodaa akhyaar xagga sare laga idmo inna been aan adeegsan markaad iridiisa dhaafto intaad gaarin ooda kore inkirku waa ku diyaar shuruudaha islaamka iyo ballanka ma ilaaliyo waa afmalab uurka marid intuu ibtilooyin geystay dadow aad wada ogtihiin intuu duuga ka badan abuur ah soo baxaysay allow umada samata bixi xaqi umadu xukum xaraan waa iska ilaali uurkiisa kuma soo dhacdee sidii dhaxal aabihii awgii ka sii horeeyay ayuu u aruursadaa arlada Nairobi iyo Karen iridii wacna Bambaasi ilaahi biyaha guriga wax lagu ogbaad eegmada aad fiirin karin indhuhu ku wareerayaan dalxiis loo taga aqoon ayaa laga wada idilay anfacankiisa ninkii ku sameeyay intaas aniga ama kaaga ma sidii eegii ibliis ay adiga iska joog liir intuu ka dhamaanay adduun arigii looga dhigo ugaas odagii ruwa ah abaal kale uma hayee wuxuu ku dhamaynay ilig anfici umada ay lahayd irbad baa laga siiyaa intii kale lagu ogsoon mas'uulkii ay lahayd urweyna maalan baqa soo waday ard ma dheelno ama ka gashaa malaha waxaan aad aroorinaydo afafkii madheera idil arrada inta ay ahayd asaguna ood ka bad arxan uma fiirinayo midkii abad soo lahaa ilmaha ku arsaaqan jiray abuurkii ugu baxa waa odiga eega male waa umale u daaya male ummadii reer madheer abuura lagu salad ilkaha maqas ay yihiin irkasho ilaahiyow agtaada unay tahay u heli dadkan abaade itaal darro oynayo awood loogu qaati intoodii mas'uul soo arkayni tani intaan soo jirnay ama kaagan muxuu ahaa nin kastaba eenka gili uuleyda durka gashay ugaarsatay inta kaleeto afkeeda dhiig kama angago rooba abshir uma soo udgeysay ilaa uu umada dhacay ee muxuu dhaamaa ayada madheera ogadii uurka laga wadiifiyay inta kale maxaa inkaaro oodii loo saaray inkirka ujeedii aqli qarsoon ayaan ka aragnaa halkaas oo wixii umad laga dhacaa in kale lagu baabi'in sidaas oo uma ekoon diidiin waa arsanay markii loo keenay akhbaar wixii abhadahay inay waafaysan ilkaha wuxuu eray ugu jawaabay halkii leeyahay haysta aniga ilaahay soo ma joogin asiibkii ugu horeeyay waa taa afka wada qaroofane insha Allah adiguna waa agtay adiguna waa agtiis ehli akhrib waxa lahayd aftirad isu xigteen ayadoo ku wada eriyaan sidii waxar injir qabtaa oo daa kore lagu xiray leeyiri uu soo warayeen in u dhawaadayaan la arkin indhaa inta hoos u rogay arin uu ka madooyi ragii inta ku yimaaday ku yiri adi soo istaag awood waa tii alle anaga kula jirnee in yar cabsiyay ku gelin aduna noqon amiire hawl kasta abaheed aha afi adini hantina inana aan ka dib dhigan inaad wax insaanimo arxam bin aadanimo uurkaad in ay ku jirin abaalkoodii baad inkirto ay duur kaga dhaqaaqday maxay ka heli in kale asxaan aad u fashadaaya ragii oo dakaadul qaara ayaad odax u duugay maanta ogow kani waa adduun nafsiguna ma yeelo irida waa kii fariista ayaamuhuna way isguriye intay kula tagin isqabo garaha uurka weynay dagoodiyaha ag degan murlaha irida bidix fadhiyay umada kale intaasi dheer intaba waa leys arko eedaada leysu keen inaad tahay aboor un helay agab meel loogu guuri ayaan daran ina adduun waxa uurkaaga jifay isleeda waa ku qarsoonta ilaah baa iftiiniyo nin walbaba waa arkaa asiibkaad adi wadaa ummad kala soo cidiyo arxan darada ku qarsoon adi unay adag ku gelin anfaca umada ay lahayd oongada aad kaga dhamaysay inuu arin ku qarsoomo ilaahay waa arkay amarkiisa inuu sugi